agoomahan ay soo bandhigtay xarunta agoonta ee ku taala gudaha magaalada Laascaanood oo ka kooban wiilal iyo hablo ayaa waxay sheegeen in ay dadka muslimiinta gaar ahaan dadka deegaanka u dhashay in ay ka codsanayaan inay kafaalo qaataan konton agoon oo iyagu u baahan in la kafaalo qaato iyagoo sheegay inay ugu baaqayaan dadka muslimiinta khayrka jecel inay ka qayb qaataan sidii agoontan ugu sameyn lahaayeen waxbarasho iyo dhanka kafaalo qaadashada ah sidoo kale halkaasi waxa ay isugu yimid agoon fara badan oo iyagu ka kooban wiilal iyo hablo iyadoo ay la socdaan dadka eheladooda iyo qaraabada ee gacanta ku haya agoontan aadka u da'da yar iyadoo qaarkoodna ay la socdeen mid ka mid ah waalidiinta u nool gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxa xaruntani ay qayb weyn ka qaadataa sidii agoonta gacanta loogu dhigi lahaa iyadoo ay ku tiirsan tahay dadka muxsiniinta ah ee kala jooga daafaha caalamka ayna soo caawiyaan had iyo jeer iyadoo bartaasi loogu qaybiyay qadar lacag oo ay soo direen hablo iyagu jooga Imaaraadka Carabta oo halkaasi agoontii yaryarayd lagu guddoonsiiyay lacag yar oo midkiiba gacanta ay ka saareen maamulka agoonta waxayna sheegeen in dadkan agoonta ay haatan soo bandhigeen in iyagu isugu jira wiilal iyo hablo waxayna sheegeen in ay codsiga ay u jeedinayaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta gaar ahaan dadka deegaanadani u dhashay in ay soo caawiyaan agoomahan yaryar waxayna sheegeen maamulka xarunta agoonta magaalada Laascaanood in loogu soo hagaajin karo akoonka xarunta agoonta amal ay ku leedahay kaasoo ay kala soo xiriiri karaan agoomaha ciddii kafaalo qaadanaysa waxbarashadooda ama noloshooda oo dhan waxaana ka mid ah culimadii halkaasi ka hadashay hadalladoodii sida tan raadin codsanayna maadaama aanu nahay maamulka xarunta agoonta Laascaanood aanu ognahay baahida jirta ee faraha badan ee agoonta haysata ee ah dhinaca waxbarasho dhinaca nololeed dhinaca duruufo badan in ay maxay ahaydeen walaalaha Soomaaliyeed ee maxay ahaydeen nala daawada kanaalkan ee Somali Channel inay ka qayb qaataan agoontaas sidii loo kafaalo qaadan lahaa oo aanu maxay ahaydeen ka diyaarinay warbixin dhameystiran arday walba aanu ka diyaarinay oo aanu doonayno inaanu cid kasta aanu u gudbino warbixinta agoontan aanu saaka halkan isugu keenay tirada agoonta aanu isu keenay waxa agoonka kafaaladiisu agoon hore oo tiro badan baanu haynaa waa $50 maxay ahayd kafaaladiisu qofkii hal kafaalo qaadanaya kii laba kafaalo qaadanaya intuu doonaba qof walba wuxuu Ilaahay ugu dhawaanayo in dantooda laga shaqeeyo agoonta ugu horeeyaan marka aad ka shaqeynayso caawintooda iyo waliba ma aha in kafaalo qaad kaliya arintu ay taayo adiga jeebka ka bixiside way dadka lagu booriyaa inay kafaalo qaadaan oo qof waliba qof garanayo u gudbiyaa ajar baad ka helaysaa qofkaasi wuxuu bixiyay sadaqadu bixiyay mid la ag baa adigana lagu qorayaa qof kasta inaad u yeedho la rabaa oo la yiraahdo war adigu hebel imisaad kafaalo qaadaysaa hebla imisaad kafaalo qaadaysaa ajarkaasi xasanaadka baa ku jira dadka Soomaalida ah ee namaqlaya ama naga daawanaya kanaalada tan waxaanu ku boorinaynaa arintaas inay ka qayb qaataan oo ay aad iyo aad ugu soo jeestaan waxa weeye ku boorinaynaa inay agoonta kafaalo qaataan dadka u dhashay waxa weeyaan gaar ahaan magaalada Laascaanood haday noqoto gobolka Sool haday noqoto waxa kale oo ku sii xigaya xagga darajada walaalaha kale ee Soomaaliyeed ayaa iyaguna ku sii xigaya xagga darajada iyo cid loo baahan yahay kafaalo qaadato cid walbana waa u furan tahay oo kafaalo qaadan walaalaha iyaga muslimiinta ma heli karno waxbarashadooda caruurta agoomaha hadii aanu nahay waalidkii hooyadii agoomaha inay noo soo caawiyaan caruurta agoomaha waxbarashadooda waxaanu kale ka codsanaynaa walaalaha iyaga islaamka inay noo soo caawiyaan oo ay waxna taraan anagoo ah agoomaha waalidkii dhalay caruurta agoomaha ah Cabdikariin Nolol Somali Channel magaalada Laascaanood